magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa maanta ka socda shir ay leeyihiin saraakiil ka socota midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeeda Soomaalida iyo mas'uuliyiin ka tirsan kuwa dawladda goboleedka Puntland. Saraakiisha ka socota midowga Yurub ayaa saakay waxay dekada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari keeneen markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada la dagaalanka burcadbadeeda Soomaalida. Wararka la helay ayaa waxay sheegayaan in shirka ay ilaalo ka yihiin diyaarado kuwaas oo lagu soo waramayo in lagu arkayo maanta hawada sare ee magaalada Boosaaso. Ila lagu kalsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan in shirka diiradda lagu saarayo sidii Puntland iyo saraakiisha midowga Yurub isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka burcadbadeeda Soomaalida iyo ilaalinta maraakiibta soo xirta dekada magaalada Boosaaso. Kulankan oo saxaafadda dibadda ka tahay waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay oo nuuciisa ka loo qabto gudaha magaalada Boosaaso, waxaana xusid mudan in xeebaha dalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin maraakiib shisheeye oo qaarkood ay kalluumaystaan xeebaha Soomaaliya qaarna ay leeyihiin kuwa midowga Yurub ee la dagaalama burcadbadeeda Soomaalida.